madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xaalkiisa caafimaad maskixiyan iyo mid jireedba waa heer sare sidaana waxaa sheegay dhakhtarkiisa aqalka cad ee Mareykanka. baaritaankiisa caafimaad ee sanadlaha ah ee ugu horeeyay tan iyo markii uu xafiiska ku soo laabtay looguna sameeyay cisbitaal ku yaala magaalada Washington ayaa sidoo kale madaxweyne Trump laga helay in dhagtiisa midig uu dhaawac yar ku yaalo sababo la xiriira dhawaqa rasaasta kadib isku daygii dil ee bishii July ee sanadkii hore. madaxweyne Trump caafimaadkiisu waa heer sare, wadnaha, neef mareenka, neerfayaasha iyo guud ahaanba shaqada jirka ayuu yiri dhakhtarkiisa Captain Cien Barbabella. Trump oo 78 jir ah wuxuu ahaa qofka ugu da'da weynaa ee xilka qabta bishii January ee sanadkan, inkastoo ninka uu xilka kala wareegay Joe Biden uu ka sii weynaa da'diisuna ay ahayd 82 jir markii uu xilka ka degayay. talaabadan ayaa qayb ka ahayd baaritaan caafimaad oo ku dhawaad 5 saacadood qaatay kana dhacay cisbitaal ku yaala Maryland, waxaana Trump lagu sameeyay dhowr baaritaan sida dhiigga, mid wadnaha ah iyo raajo sida uu sheegay dhakhtarkiisa oo ah dhakhtar ciidamada badda ee dalka Mareykanka kaas oo ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. madaxweyne Trump waxa uu caafimaadkiisa garaadka iyo jirkiisaba muujiyay heer sare. mar kale waa uu gudan karaa xilalkiisa madaxa guud ee ciidanka dalka Mareykanka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka ayuu yiri dhakhtarkiisa. Donald Trump ayaa sidoo kale lagu sameeyay baaritaan dhanka maskaxda, neerfayaasha iyo shaqada dareemaha, mana lagu arkin wax calaamado dhanka isku buuqa ah ama walaac kale. Trump ayaa sidoo kale lagu sameeyay baaritaan garaadka ah, wuxuuna dhibcaha 30 uu keenay sida uu sheegay Dr. Barbabella. baaritaanka ayaa guud ahaan waxaa loo adeegsadaa in lagu ogaado hoos u dhaca garaadka iyo calaamadaha hore ee cudurka asaasaqa, waxaana xujooyinka ka mid ah magacaabidda xayawaanada, sawirada, saacadda iyo erayada lagu celiyo 5 daqiiqo kadib. mar uu wariyaasha la hadlayay shalayto, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in baaritaanka garaadka uu jawaab walba sida saxda u keenay. guud ahaan waxaa dareemay ayuu yiri in xaalkayga caafimaad uu fiican yahay. Trump waxa uu yiri waxaan leeyahay wadna fiican iyo naf aad u wanaagsan. dhakhtarka Trump ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Trump lagu arkay waxyeelo yar oo qoraxda ah oo jirkiisa saameysay. madaxweynaha ayaa qaata daawooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo kolestaroolkiisa iyo sidoo kale aspirin dhanka wadnaha ah iyo kareemka dhanka maqaarka ah. guud ahaanba baaritaanka lagu sameeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhakhtarkiisu waxa uu sheegay inuu ahaa mid aad u wanaagsan.